haddii uu raaco 5 sirood oo aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay. 1. Tirada isku daygaaga. Caruurtu waxay bartaan sida shay ama walax si caadi ah loogu qabto kadib markay shayga u qabtaan siyaabaha qaldan oo dhan. Markasta oo uu ilmuhu walaxda u qabto si qaldan, waxay ka dhacdaa gacmihiisa, waxaanu wax cusub ka bartaa sida loo qabanayo walaxda. Kadib markuu isku dayo badan oo ku filan uu sameeyo, ilmuhu wuxuu bartaa sida shayga si sax ah loogu qabanayo. Tan waxaa la mid ah hab kasta oo wax lagu barto iyo guul kasta oo la gaaro. haddii aad rabto inaad guul gaadho, waa inaad ku tala gashaa inaad marar badan guul daraysato ilaa aad ka helayso waxa kuu shaqaynaya. Isbedbeddel samee. Markaad guul daraysato, isbedbeddel samee oo beddel xeeladii iyo habkii hore ee aad raacaysay. Isku day wax cusub ama habkii hore ee aad wax iskugu daysay beddel. Isku day inaad ogaato sababtaad u guul daraysatay si aad u hagaajiso wixii kaa qaldamay isku daygaaga xiga. mar kasta oo aad guul daraysato, waxaad ogaan doontaa wax cusub oo kaa hortaagnaa inaad guulaysato. kadib markaad tiro kugu filan guul daraysato, ugu dambaynta ma jiri doono wax kaa hor istaagaya waddadaada guusha. 100% aamin inaad gaadhayso hadafyadaada. ninkii laambadda hindisay ee Thomas Edison ayaa waxaa la weydiiyey sidii uu u maareeyey inuu 1000 jeer isku dayo inuu laambadda hindiso, isagoo mar kasta guul daraysanaya haddana aan rajo dhigayn, isagoo qof kastoo arkaaba ka maadsanaya. waxaanu yidhi, mar kasta oo uu qof igu yidhaa waad ku fashilantay samaynta laambadda, waxaan ugu jawaabi jiray kumaan fashilmin, balse waxaan ogaaday dariiqo kale oo aan lagu samayn karin laambadda. sidaa daraaddeed, Thomas Edison wuxuu 100% hubay inuu guulaysanayo. waxaanu fahmay inay ka xigaan oo keliya waqti iyo isku dayo badani. baro sababta ka dambaysa guuldarradaada. inta ugu badan dadka aan guulaha gaadhin waxay dareemaan caawimaad la'aan. taasna waxaa badanaa ugu wacan sababtoo ah ma garanayaan waxay sameeyaan si ay u guulaystaan oo ay u gaadhaan hadafyadooda. kadib dhowrka guuldarro ee ugu horreeya ama guuldarrada koowaadba way niyad jabaan xaggii ay ka baran lahaayeen sababta ka dambaysa guuldarradooda. mar kasta oo aad guul daraysato, baro wixii kaa qaldamay. baro sida loo weydiiyo dadka khubarada ah waxa sabab u ah guuldarradaada. sidoo kale baro sida xal looga raadiyo internetka. hadalkoo gaaban waa inaad barataa sidaad xal ugu heli lahayd waxa kaa hortaagan guusha. haddii kale weligaa guul gaadhi maysid, waxaana dareemi doontaa caawimaad la'aan iyo ciirsi la'aan. noqo mid niyad ahaan iyo nafsi ahaanba u diyaarsan. dadku way ku dhalaacayn doonaan, way kaa maadsan doonaan, waanay ku niyad jabin doonaan. waxay shaki gelin doonaan waxaad ka aaminsan tahay naftaada, waanay ku diidi doonaan. intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad marar badan guul daraysato ka hor inta aanad guulaysan, waxaanad waajihi doontaa caqabado badan. haddii aad rabto inaad guul gaadho, waa inaad noqotaa mid waxyaabahan oo dhan si nafsiyan iyo niyad ahba ugu diyaarsan oo adkaysi u leh si aanay u burburin rajadaada iyo riyadaada. ku dheg talooyinka, waxaanad waal gaadhi doontaa guul. habeenno gudahood ku dhici mayso, waxaanay u baahan tahay uhuritaan iyo shaqo adag, balse dhammaadka waad gaadhi doontaa. guushu waxay qaadataa waqti, waxaanay u baahan tahay samir. waxaa aad u yar in guushu ay si dhaqso ah ama habeenno gudahood ku dhacdo. taasina waa sababta ay tahay inaad u diyaargarowdo socdaal dheer haddii aad rabto inaad guul gaadho. kuma lihi guul kuma gaadhi kartid wakhti gaaban gudihii, balse waa inaad ka war haysaa in inta ugu badan aanay guushu dhaqso ku iman. haddii aad u malayso oo aad istiraa guushu way kaa raagtay oo dib bay kaaga dhacday, ha warwarin, sababtoo ah taasi waa wax iska caadi ah. dejiso qorshe wakhti dheer ah oo badanaa dib u hubi qorshaha si aad ula socoto horumarka aad samaynayso. beddel hababka aad raacayso haddii aanad wax natiijo ah helayn. siina wad isku dagaaga ilaa aad ka helayso waxa aad rabto.